muddo ka badan 4 bilood gawaari ganacsi oo badeeco ama agab kale sida ma soo gelin magaalada Xudur ganacsatadii isku dayday inay wax soo geliyaan al-shabaab ayaa hantidooda wadada ku gubtay taas waxay sababtay in maciishada cuntada quutul daruuriga cirka isku shareerto bakhaarada magaaladana albaabada loo laabo maadaama ay faaruq yihiin waxaa nolosha aad ugu adag tahay muruq maalatada iyo danyarta magaalada 1 kiilo oo sonkor ah hadii la helo waxa la kala siisanayaa 50,000 oo shilinka Soomaaliga oo dhiganta $2 qaar ka mid ah bulshada ayaan mikrofoonka la dhex qaaday marka uu shaqada ay ma haytay loorka ay waay ilaahi warqaba dadweyne filan la mid walba baashar was kuna gadeen dal litra 60 kun gadahay litra 60 kun gadahay lanki adaga dab $1 baaba lama go ambaako basuubida hatta masiyana ما بس إن شاء الله أنت ويقلا ما نهاتن تعال مقارتون غربة شيء قاعد أنا لانك والقابي نورتو والكجاد ضبوا وايسيني وايس لا أجا بارفسيني إيركان ينفرونا رول ما بنا ينفرونا أنت أصلني حبيس كجارنا واي ولا سان لان هور والسين شاء جي بملا أني والسين شاء جي حبيس كأني إنه بيو ما يفضل إنها إيركان ولا إني إنكشان رول كيسبان إنه ولا أو بان وايت أنا إيركا ودعايت أنا تيرك ولا إنكشان إلى ولا إنكشان كره ولا إنكشان magaalada maybwa dukaamo horta leedan wala hata macna ka tiirsanaaytay hata nolol lamadan beer la ka noolay dukaan xaafadeed oo kiilalaha ku eedeegada haytay maay oo nolol magaalada hejeelan nagadayo masaloor hirin masahafirin la ku gadado ma lahayna marka walaayna hata qiimaha eeda saaidin ay $2 ibara la gada kiila haafki $35 la gada la hoob la hel ma helo may odsaane lamada madaxweyne koonfur galbeed madaxweynaha dawladda dhexe inisa guddiga gurmudahniina deeri maalin dhaweeya magaalada leeraw daafeed lama baabuur lika gubi wali adduunka qayle ku weeraw ma arag hoyt siyeedsana ya baabuur noo gubay hantil noo gubay walwal noo gubay horlan ku hadalay malle dhinaca kale dalagyadii ah rajada kaliya oo beeralayda ay u diyaar garoobayeen goosashadiisa waxa afka mariyay ayax ku soo noqnoqday beero yoon hanuun daafay malaayna haaniro ninka bayo nugu gaalis la qofsad isugu wala ilaahay ku nasiibay ya qaam dadki berje balku ba qaamay berje balkan dhaa kulay dhawaatada jarto ilaahay rahmaan ay weey magaalada Xudur waxaa dul saaran shacab ka soo barakacay degmooyinka Tiyaglow, Rabdhuure iyo deegaano kale oo bakool ka tirsan xaaladooda nololeedna aad u liidato kuwaas oo u baahan in gargaar bani'aadanimo la soo gaaro Maxamed Xasan Abdiraxmaan raadiyaha telefishanka qaranka magaalada Xudur.